madaxweynaha dalka Cuba Miguel Diaz-Canel ayaa sheegay in wadahadalo dhinaca qadka taleefanka uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya isla markaasna uu kala hadlay dhaqaatiirtii la afduubtay oo la sheegay in lagu hayo qaybo kamid ah dalka Soomaaliya. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweynaha dalka Cuba ku sheegay in inta badan ay iska warsadeen xaaladda dhaqaatiirta u dhalatay dalka Cuba ee laga soo afduubtay gudaha dalka Kenya. sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Cuba in madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya uu kala hadlay sidii dhaqaatiirtaasi ay dib xorriyadooda ugu heli lahaayeen iyagoo bad qaba isla markaasna si wada jira lagu wada shaqayn lahaa. 12 bishii Abriil ee sanadkan dabayaaqada ah ee 2019 ayaa rag hubeysan waxa ay duleedka magaalada Mandheera ka afduubteen laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba iyagoona xilligaa dilay askari boolis Kenyan ah oo ilaalinaya dhaqaatiirta u dhashay dalka Cuba ee la afduubtay. afayeen u hadlay booliska dalka Kenya Charles Ohino ayaa sheegay in dableyda oo wadatay laba baabuur oo Toyota ay afduubteen dhaqaatiirta loona maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. عبد الولي بلقلبوك TV.